السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal waxaan joogaa xeebta Liido oo quruxdeedan xitaa aan tusi badankii TV wax negative u niyo magaalada xamar ka soo saara laakiin waxaan doonayaa xitaa inaan quruxdeeda iyo dhinaca positive ka xitaa inaan tusana sababta si kastoo magaalada iska dhibaataysan tahay ummadda badankooda ummad khair iyo nabad jecel marka insha Allah ani hadalkan xaggaasaan ku soo gabagaabini inta kale quruxda xamar xeebta Liido aan tusi ku raaxaysta dalkiina qurux badan. I'm just filming to show you guys what's going on in Liido beach. Unfortunately when Mogadishu gets portrayed on TV it's always negative, so I want to also show the positive side. Even though it's a city that has its own struggles, it's also a city with a lot of life and a lot of positive sides of things, and also people that wants happiness and peace. So I'll just keep my mouth shut before I talk more nonsense. So I'll just let you guys enjoy the beauty of the country.
got here a couple of fishermen that are catching fish with their own hands. They came all the way from there. So المنطقة والله مكنوتي قعدت بسوق غالي. كان ألبي سنتين حيبت حقي جوتك. كان فوقي كصوب. ما شاء الله مدة وسوالف أفرح صب هاينا لبنان جعلنا مالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليال سو دواaro waxaan imika joognaa beerta Nabadda oo intan qurux dheeran xitaa aan soo wari doonaa insha Allah. So just let you know guys, I'm now with the Peace, what's it called? Peace Gardens, sorry. I forgot. Peace Gardens. So I'll film that part and I'll let you guys enjoy the beauty of the place. Okay. It has a mosque here, as you can see. I'll zoom it in a little bit. It says masjid. Good thing is I'll film that part as well. Yeah. So meesha wixii haystaa masaajid iyo xitaa wixii leeyahay meel yar oo gym lagu ciyaaro. Taana xitaa aniyo soo duubi. Horta meeshaan sii galno. ايش نعطي لنا جيم يرى لقوا عياره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رياض تصير عندي ما شاء الله. نروح لدولتين يا لما نوصلها. ماشي حتى وحي ستعمل يرى جيم لقوا عياره. ماشي مركان واركو waxaan xasuustaa maxaa race hotel dhismaha isku yaray si kastoo meeshan si kala yar muuqaal kala yar leedahay dhismo kala yar leedahay laakiin idinka ku baashaala ku raaxaysta quruxda dalkeena. So the place has also a gym, and as I mentioned earlier it has also a mosque. This tree you can see, I think, what is it? Mangoes maybe? Yeah, I think it's mango actually. So سفي عن زوم سوداوية أركتين أسوايا Somali Youth League كون سراب وقصدها فترة. So you can, if I zoom in very well, you can see SYL monument, the year 1943. Imagine حتى ميلر وتمحير نويلارها. So it has also its own bar. walaalayaal meeshana waxaa weeye meelaha heesaha lagu qabto iyo dhalinyarta markay jaamacadda soo qaran jabiyaan. Haye walaalayaal
وقتاس واركيسين beerta Nabadda aan soo dhameynay so imika gurigaan ku noqoni doonaa waxaan doonayaa inaan raaro horta Muqdisho si kasto oo dhibaato ka socdo wallahi ani dadkaan la kulmay badankii waa dad fiican oo Soomaalnimada jecel oo dadka xitaa soo dhaweynaya dib alxamdulillah ilaa imika lamaan kulmin ilaahayna iga ilaaliyo oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ha ka ilaaliyo meelo kale qurxoon ah jira oo jeclaan lahaa inaan soo sawiro laakiin duruufihii aan saamixaynin si kasta garanaysiin magaaladan iyo duruufaha ku yar jirto laakiin insha Allah waxaan ku dadaalay intaan soo duubi karo inaan soo duubo. So just to let you know guys, that was the Peace Gardens and now I'm just gonna go back home. I just wanted to highlight one thing that even though there's a lot of negativity portrayed about Mogadishu, I've met so many positive people, so many nice people, like very welcoming people that love peace, love their country, and unfortunately are not represented as much on the media as we would like to. And unfortunately there are also so many other beautiful places in the city, but due to the current circumstances I can't go and film everywhere. So I hope you guys will have patience with me on that, and I will try to film other places for you as soon as I get the chance. But as of right now, the current climate, I personally would not want to risk anyone's life, so that's why I'd rather not film certain places. Although I must say most of the places that I've been in Mogadishu are pretty nice. I felt pretty safe most of the places, to be very honest. There are times where you are very much worried too. I'm not gonna lie about that, because some of the attacks that are happening are very random and anyone can get hit. But inshallah we pray that Somalia gets peace and prosperity and we can all come and enjoy our country inshallah. Waayo nasi salaam ya walaalayaal inta ugu dambeysaan ka hadlaya waxa weeyaan meelo kale oo qurxoon oo magaalada ka tirsan aan soo maray oo soo arkay duruufaha nimika saamixaynin inaan soo sawiro laakiin waxaan doonayaa inaan ummadda u sheego si kasta oo qarax iyo dhibaato jirto ani intaan la kulmay islaan ka hor sheegay waa dad fiican aan la kulmay Muqdisho si fiican oo la soo dhaweeyay dadkaan la kulmayna dad fiican oo badankooda ahayn qaraxana waxa weeyaan wuxuu Ilaahay ku qoro qaraxa uu jiraa taa waa arun dhibaatadaasna way jirtaa laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa ducaynaynaa inuu Ilaahay nabad dalkeena u keeno oo sidii xitaa ummadeeni nabad u hesho iyo horumar. Waa nasi salaamay. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.